يارده هودا مريسا dib loo soo celiyay waa fal dambiyeed iyo isku day dil oo laga xisaabtami doono waqtigeeda. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلتي وعنا ولا سوى برنامج كمان طبعا اسقود التاجنا هجامية كوحيد يدي لقعري مقالة مقدشو سعيد عبد الله دني سعيد هلومبي إيه أحمد مدوبي وعن كأصلا برنامج دوك سو قرنا سيشر قرص هذه سنة تكون جكتر وسو تقبل هني قلنا تكلم النبي صلى اللهم صل على سيدنا محمد قلب كنا كوبات دولة الصومالية أي وحي دي sheekadii jilicsaneyd ee niicda ahayd ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ka aqbali jiray axmed madoobe iyo siciid hulumbe iyo hogaamiye kooxeedada hadhgumaysi ee ummadda Soomaaliyeed ragaadiyay muqdisho waa caasimadda ummadda Soomaaliyeed dawlad bay leedahay amni baa ka jira waxay leedahay wasaaradihii dawladda federaalka jooga muqdisho waxa ku nool oo joogi jiray حبيب الملايين محمد عبد الله فرماجة مدحوينه كوناكسن ينن كهوفن إيجاسيات برا دولة الدحية الصومالية سي أوبر برت مدحوينه لما بدأ الصومالية دوم الصوماليين تذكر الصوماليين وكل يوضان مرة بعدين هي محمد عبد الله فرماجة وبلا فهد ياسين وبلا حنون وبلا وحوي إيمان الله ويلا إن هي السعودية تذكر الصوماليين وكل يوضان مقدشو waxa ku nool maxamed cabdullaahi farmaajo intuu yimaado si nabada intuu ugu noolaado si nabada uga baxa marka waxaan rabaa inaan si fiican isu dul taagno sheekadan siciid hulumbe la soo istaagay media maanta ninkii siciid hulumbaha oo barooranaya reer Puntland hadaan nahay isku day dil baanu ka badbaadnay waana la xasuuq lahaa dadka reer Puntland dib bay isugu noqonayaan waa inaynu tashanaa yaa kula Puntland cidda aad warkan u sheegaysaa siciid hulumbe waa ayo عدة عالدة حليلة بررتوا أيوه وأنا كلا بررانين وأنا كلا صعون وأنا وحوي يقرب كسينين بين خيالي يكارلي هذا الداروديسم أو إنه ويد بالرمين الحقده إيجي كار قبل كي دعي أو تحمي أو أوجي فوت كلاعبي أو دتك الصومالية الله بكون يلحي لبعتن بالوجرة دتكم معاما دتكم حول أدواركتان دتكم هندكاب أدواركتان مين الوالنا هي بدنا هيستان ninkii aad shalay tunka ku sidateen oo aad dawladnimada meel ku soo wada burburiseen oo farmaajo aad weerarayseen oo qarannimada diidanaydeen war adigu Siciid Cabdullaahi Daniye waa ku sidee aqliga miyaanu shaqayn eegay 3 sano kama soo wareegay markaad barxadda taagnay oo wallahi ninkani daarood maaha ninkani waa cadow xasan sheekh wiiladil naf iyo maalba waxaan ku bixinayaa sidii aan u burburin lahaa farmaajo san dawladnimada meesha uga saar lahaa shalay bay ahayd إلا وشدوا ده ما حمار باطل ضمير باطل بس عضو استضدك عقلك ضميرون كشران دولة الصومالية شعب كبوتلان تاجر سنتهاي أمر كلجو عليي وعوي كوحدة هجامية كوحدة أحمد مدوبي سعيد هلوم بهرجو ميسي وعايز كلها الرئيس الوزراء أمد الصومالية حمزة عبد برة أمر كحمزة عبد برة بحيي هرانا الله وش وحلويلي waxaan idin ogol lahay 8 wiil ama 10 wiil oo staafkiina ah war Ethiopia marka tagaysaan idinko bila staaf baad Ethiopia ka degtaan Kenya marka tagaysaan idinko bila staaf baad ka degtaan Dubai marka u socotaan waad dhuumashaad ku tagtaan idinko quraba taga maxaa keenay inaad caasimadda Soomaaliyeed inaad fool xumaysaan eegay oo ninkii shalay aad ku sidateen oo lahaydeen xasan sheekh wali ilaahay uma doo soo diray farmaajan ku gowracayna axmed madoobe iyo siciid hulumbow maanta inaad tiraahdaa waa cadow oo daarood buu rabay inuu laayo yaa idila daarooda cidda idila daaroodka aad ka sheekeynaysan wacayo dadkii waxbay fahmeen daarood waxbuu fahmay كبلا وحبو فهمي أبسمي وحبو فهمي هرتيجي وحبو فهمي تربكي وعلى الرجلين عكلا الرجل لما كن يلح لا تنبل الشجاع حمزة عبد البريبة عمل كم بحيي أو يرعيد للسوقلي كرتا غوري يدبابات يعيدمو يسبن متشر تمنا دعيسو وعيش لي فرماتش إذن كأقبلي أو هو يسيدن إذن كويلي حل برادني دولة نبوربي وحربي بدل كان يدد كان بابعين إلى هاي وحوي يشبر مرق وقال لقاه وحوي يدل كان يدد كان وبدباديو وحكستو آتر هذان وح الله عليه واحد أفكين صامر إنسان فرماتشو وقالن كودوجي سيدور ردم الله هلا لكن مدحوين فرماتشو وحكم مغليد نجح تابشة يتوجون واسقين بالي إن الحيوان تين عن عقل أيضا الحين أو نكاسي سوى البويد لهذا
كارك الداروديسم كاي ما أنت حقنا إنسان إدميريا الله فردان فرمات حتى ويدين حق ورمينا طلها ينبوج ورهوية أقل ورحوين باي أقل وردر يدارود دتك كلا ويقوليه ورلبدينا نبي يقول تاجن طل ميدان هاي ورمحات ذلك يدك وبابين سنمايا ما تشرتبات هذا ولي بس عيد هلون بونوبات صغر طيافكات فرطي ما أنت المركب برحد يجرو كويسة وحليتها إن للدل اسكو ضيد البيت أنا يا أحمد بدوبة للدل سوا للدلي ما أنا وقديشة ما حد كسو كردسين دارود هرتي ما حد كسو كردسي ما ذاك هذا عيدا بالجي عري أسكر بعريسي عيدا بالجي عري ديارات اسكو ضيد قبل بالجودي بهير دقيقة هير هرتي لي هذا مشورة تيجا بطلان هرتي بقى أبدا مشورة تيجا وأنا طلقها ميل آدم حبت كردين يميل آدم سبل لدعين يميل بس أصدقني سنة مقدسة بركة يشد دروابات دروا جندريك أنا أفكر قصتي هاشنا عندنا قصتي يرمحي كل نكتة محيش أكون نكتة بات نهاربات قولوا لي سي أو حبت كردي برمبات حبت كردي بواساسات حبت كردي قرنات حبت كردي قروات حبت كردي ميل كستانة تمنقول له هرتيا باخد مني ميل كستا أو حبت كردو ميت يداوع باجيلي marka sada xatir muqdisho waxa la galiyaa madaaficiyo yunhub la galiyaa lama galishid anaga kule anaga dawladda dhexe taageersan anaga kula hartiya anaga Puntlander ah cid allaale iyo cid kugula socota baroortan aad barooranaysid iyo oohintan aad waxa weeye qol intaas ku soo xirtay qol baad baroor qabsatay isku daydil baan la ku sameeyay inna lillahi ya la rabay cid allaale iyo cid kula ilahay cid wax kugu falaysa ma jirto muqdisho hadii cid wax lagu yeelayo محمد عبد الله فرماجو oo ninka qiimo badan oo Soomaaliyeed kun jeer hadii adiga iyo 10 kilomitir hadii miisaan la saaro aanay gaadhin baa muqdisho joogay cidina sida qodax ugu mudin maxaa lagu falaya waxaad waday fawdo waxaad waday sheeka jilicsan oo niica waxaad waday edab darro xaq bayno u leedahay dawladda dhexe inay iska ka qabato waxa ninkii barqaati beenaale noqda inuu qoriyo xiraalaaw yahay kii uu ku furayno og كي أفرينه أوك إلى هين أوك حسن الشيخ وحوق هنا تقاري حلالة هاي إن إيمان لا هاي إن هيرجد سعونة هاي إن الضغط هاي إيه أنت وكاور هيا سياك هاي يا الأمريك ولي بقى حسن الشيخ بقى لسكا ما دعاك وسيتان حسن وح الله عليه وحسن الشيخ شغل كله يمشي حمزة عبد البر ونين دارود وقاعدين بعد ديدي لبدي إنه بينات خوب يعيد الله صوق عشان مقدشوا وأنا كوس حين وكوس حين هاي دلك الدولة بوليه هاي مقدشنا وأمني أمني ما الوص حدا أمني ما الوص وقع بلا دقيقة إذا بدر الله ما بهني شكاك الأسن برار بولس يستاجر يبرر بطلانه وكت الشرينا دبان وإيجينا عد الله لا يعد بطلان كل صعدة يدارات كل صعدة والله بالله تلا يبان وجهن هذه دارات نما احترسوا حمزة عبد البروان دار إسماعيل وانين وقاعدين معك شاكيس بلا دقيقة بالبرار تمحي الردقست عبادك هالكن كبحية يا بنت يا منافقة النكاس كشاكينيو يا إيمان ليدا حتى هدتك هرف ديبو عاية وحلي يديك ورما هيسان يديك وحمو وجدين هاي مساكن بحنا عيدا يو دبابات بانو درنا يو الشركة وفتي يو بقرأ هاي وفتي الشركة كقيب قلها هو ذا لقوا عليه اسكو ديد البيه وين يدي لها يديك ورما هيسان دتك هرف ديبو حتى عاية ديجو يا رد هو ذا مرة يساعد بلوس عليه وفلدنبيات يسكو ديد oo laga xisaabtami doono waqtigeeda intiina halka fadhida kama warqabtaan saaka markaan garow ka soo baxnay ciidamadii hordhaca ahaa wafdiga dawladda Puntland xamar uga qayb gal laha shirka lagu igmaday oo maanta safar u galay iyagoo dhex hawada maraya ayaa laga soo celiyay diyaaradoodii aan inii sheegayaa Puntland iyo dadkeedu war dhow ayay wararkaas iyo wixii naga gudban ka soo sheegay wallahi waxba kama jiraan oo billahi waa beenti oo tallahi waa beenti inaan cidina la socon waa isaga iyo afar kale oo waxa weeye hargumaysi ka tirsan oo team virus la yiraahdo reer Puntland dawladda Soomaaliya taageersan yihiin reer Puntland midnimada ay taageersan yihiin reer Puntland qarannimada ay taageersan yihiin ana Puntlander oo waliba miidi Puntland baan hayno hatta ma yihid fooriga iyo hareeraha nin degan ma yihiin guntii Puntland baan hay haba kama jiraan annaga raali ka ah oo reer Puntland عاصمته إني أمنت هاي أنا جا أوك إلهي با أوك قف كسته أو صوماليات با مقدسة كده يكرا
adeer sheekadan waa isku daydil bay ahayd waa ka jawaabi doonaa miidiyahana maxaa la soo geliyay axmed madoobe iyo siciid hulun baa la dili lahaa laba ninoo daarood ismaaciila baa muqdisho hawiye ku dili lahaa waxba kama jiraan sheeka niica qor sheeka jilicsan qor doqoniino qor baroor qor waxaan jirin qor baan qoriniyo xasan sheekh maxamuud waa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ha xumaado ha samaado wuxuu ku xun yahay farta lagu fiiqayaa wuxuu ku fiican yahay waa lagu bogaadinayaa xamse waa ra'iisul wasaaraha ummadda Soomaaliyeed wuxuu ku xun yahay baa loo sheegayaa wuxuu ku fiican yahay oo lagu boorinayaa imaa markay noqoto hargumeysi iyo hogaamiye kooxeed iimaan laawayaala iyo dawladda dhexe markay noqoto annagu waxaanu taageeraynaa dawladda dhexe annagu waxaan garabka saaraynaa dawladda dhexe annagu waxaanu aaminsanahay dawladda dhexe siciid hulumbow baroortan iyo oohintan iyo ilmada iyo xaaska aad daadinaysid meel ay maanta kaaga qormayso wiilka yar iyo gabadha yar ee daarood ismaaciil maanta waa ogyihiin inaad iimaan laawo tahay inaad cadow tahay cadow aan adiga haynaan daarood lahayn cadow aan adiga haynaan harti lahayn cadow aan adiga lahayn dadka reer Puntland inaanay lahayn waa la ogyihiin yaa marka kula daaroodka maanta u baroonaysa waayo Puntland aad u baroonaysa hartigan aad u baroonaysa kuwaad shalay weeraraysa miyaan ahayn kuwaad lahayd gooni goosadka iyo cadowga ummadda Soomaaliyeed kuwaad u soo raacaysa miyaan ahayn wariga aqliga dadka maxaad u haysataa xayawaan dadku adiga kaama aqli liita dadka adaa ugu liita adaan ugu aqoon yar bagaashlaha kale loo waayay siyaasadda ku soo lumay ee ilaahay laba jeer intuu geer u galiyay nasiib aad heshay isu qaatay inuu wax fahansan yahay doqon baa tahay doqon Siciid Hulumbow ra'iisul wasaare xamse cabdi barre anoo ku hadlaya afka dhalinyarada Soomaaliyeed afka abwaanada afka aqoonyahanka afka waxgaradka Soomaaliyeed jaale ra'iisul wasaare hambaliyaan ugu leenahay waa ku hambalyeynayna waa kugu bogaadinayna sida kartida leh ee dadnimada leh eegay aad barida dhulka ugu dhufatay hargumeysi caasimadu amni maaha ha maxaad soo doontay adeer haddaad imanaysid adiga iyo afartaada wiil faliya tafadal waa diiday Soomaha badhidhookhdii iyo sheekadii humbul libaax ma u ekaydi waxaas waa soo dhamaadeen haddii shalay xabiibul malaayiinku wax walba idinka yeelayay oo inaadeerkiin ah oo tolkiin ah oo idin warin maadeeryaalo war dadka aad hadeen waxba garan maysid nin cadowga meesha loo fadhiyay ninkan daarad waxba ugu filla waxba anaga nama siiyo war qaranka war dalka war dadka war waa loo sameeyay war jooga wax walba haduu farmaajo idinka aqbalay ninkan xamse cabdi baraal yahada wixii farmaajo idinka yeelay isagu idinka yeeli maayo warkaana ana idin hayo confirm amarka waxa bixiyay xamse cabdi baraa bixiyay inaan diyaarad quray oo hub iyo ciidan sida aan ka soo digi karin Muqdisho xaq buu u lahaa waana ku taageersanahay ra'iisul wasaaraha waxaan idin sheegayaa annagu ma nihin doqon ma nihin ma liibaanayaan lagu liibaana ma nihin baladeegi dawladnimada ayaa ka muhiimsan daaroodnimada waxaa ka muhiimsan dawladnimada ummadda Soomaaliyeed baa ka muhiimsan marka dawladnimo ummad Soomaaliyeed la helo ayay daaroodnimada wax goynaysaa teeda kale inaad idinku xoolatiin oo bil aqli litiin war daaroodnimadii aad shalay waxa weeye ku gowracdeen farmaajo oo dawladnimadii Soomaaliyeed maxaad ku burburiseen shalay yaa dawladnimadii Soomaaliyeed burburiyay yaa farmaajo maxaa Abdullaahi farmaajo fiila Soomaaliya ka saaray mahawiya ka saaray kama saarin axmed madoobe iyo siciid hulun baa ka saaray waa laba nin oo daaroodnimada maalinka shaqayn weyday eegay maanta iyadoo dulmi ah wallahi billahi tallahi baana shaqaynay halkan annaga u fadhina annaga difaacayna dawladnimada annaga reer Puntland oo hartiya oo daarooda oo difaacayna dawladnimada ummadda Soomaaliyeed oo Muqdisho difaacayna Muqdishona waa caasimadii waana amni haddaad niyahow dadka aad buura ka hayso siciid hulun buu ku soo daa cid kula socotaan aan bagaran reer Puntland hadaan nahay war Puntland la socotaa intaasu hawada marsanaya wax ka naf kale ninkan ma hayo intaasu hawada marsanaya ana idin leh reer Puntland waxay taageersan yihiin midnimada iyo qarannimada iyo dawladnimada ummadda Soomaaliyeed reer Kismaayo iyo Jubbaland waxay taageersan yihiin midnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed axmed madoobe inuu ogaadeen ma waa maxamed suwayr warri Cabdulle xamse cabdi barrana waa ogaadeen waa maxamed suwayr warri Cabdulle xaqii cadowgu jooga marka كاركن هوية دل والله بالله تلا هوية نصح بك وجين أنا هذه دي مرة حمزة عبد البراب بحي حمزة عبد البراب هوية نقضي قول ما أبقى نقضي حمزة عبد البراب نين دارود اسماعيل الرئيس الوزراء بديدي أنت نكارك دارود اسمك الله حقني يبتاع وقاعدة لبدن دالين
iimaan laawayaasha ee munaafiqiinta ah dadkii shacabka reer Jubbaland baahi iyo gaajo iyo abaar baa haysa kuwii Puntland ilaahay baan ku dhaartay baqtiga awalba dadku iyagoon waxba aan hayn maantana abaar baa ku dhufatay naftii baa dadkii haysa geerida iyo gaajada xooluhu sidoo u dhimanaya dadku u dhimanaya hantidii ummadda soo reer Puntland lahaayeen oo dhan jeebku ku shubtay Siciid Hulumbu markaas wuxuu leeyahay tolaaya ya daarood Ismaaciil ee durugta ceebti noo daaroodism daaroodka xalaasha ah ee gobta ah ee dhaqan kale dawladnimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed bay taageersan adigina way ka soo horjeedaan tiimkiina tiim fayrasna gabal baa u dumay albaab walba bahdil maanta ku haray ma jira maanta bahdil ku haray ma jira Siciid Hulumbu Xasan Sheikh Sooninka tunka ku sidintay maaha maanta soo Muqdisho isagoo madaxweynaha Muqdisho kama deg wayn soo Xamse Cabdi Barre oo ra'iisul wasaariga kuma diidin eegi adaa keenay gacantaad ku keensatay is eerso adigu is eerso anaga waa noo fiican yahay waa madaxweynahayagii waa caasimadeedii Xamse waa ra'iisul wasaarihi waa nin daarood Ismaaciil isaga magaca reerka halka ku metela isagaanu taageersanahay baleegi marka laga yimaado midnimada iyo dawladnimada ummadda Soomaaliyeed oo aanu taageersanahay qabiil haday noqotana Xamse Cabdi Barre noo jooga waa nin daarood Ismaaciil oo ogaadina wallaan dheera waa taageersana waan ku daba faylayna cadkaygiina isaga waxa weeye kursigaygu ku fadhiya حتى دارود نمدا مركي كارك دارود نمدا حقنيسان reer Puntland ha reer Jubbaland daarood baa la dili gaar daarood dawladnimadu la socdaa midnimadu la socdaa qarannimadu la socdaa adkayso waxaad siiyay eegay maanta adu daalinimaad waday iimaan la'aan baad waday qurun baad waday qashaanbiir baad waday dawladda dhexe Xamse Cabdi Barre waa ka qabteen waana taageerina baroor looma baahna sheeka jilicsan looma baahna halkan anaga fadhina oo daarood Ismaaciila oo hartiya haday wax tarayso qiimo leedahay hartinimada iyo Puntlandnimada badbaadu weeday shacabka Puntland ee maalmo baad meel xabad ka ridid maantana abaar haystaan eegay ad malaayiinta dollar Muqdisho u qaadaysid shirarka Kismaayo ku qabilaysid Kismaayo wixii ka dhacay dhaqaalaheeda isaga bixiyay Siciid Hulumbu bixiyay baladeegi dahabkaygi soo ceerin soo nooc kasta imaaraad baa guran jiray ilaahay baa naga soo qabtay iyo dawladda waxa way Xasan Sheikh madaxweynaha ka yahay taankiyo madaxweynaha kulan saad imaaraadka noo qabato wadanka uga saartay قبل بايدين دمي هرج ميسيو أو بعد كوشتان أو ده سنة والله بالله تلاهي كوشريسان ورسيشر جرب برنامج كدوك سو جارو خير بركة كورة جني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته